السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جانل كمركز السود وهذا أدي هذا سنتين مانتا واثنين تضبيط طبعا كبش الله بعد فبراير سنة كلا بدو كون يشان يلا باتنك مقال كان حربا إن ندخل وذاقو معمول كترام أو شقادة كعريي لباتن جرسورة أو دينا immigration كا أرنتاسي سبا سامين انتلاج أي كوية لنكرتا كيساسكي دادكي مغانجليدون كا يفرح بدنا أي محكمة ده immigration كا horyelay sidoo kale waan idin wadaagay arintaasi waxa jirta in sidoo kalena maamulka magaalada New York maayarka magaalada New York in dacwado musuqmaasuq oo ku socday wasaaradda cadaaladda ay gabi ahaanba tuurtay arintaasi waxa la leeyahay maayarka magaalada New York waxa uu ku bedeshay in maamulka Trump uu kala shaqeeyo maadaama magaalada New York ay sanctuary city tahay in ay xabsiyadeeda loo furo oo dadka dambiilayaasha ay kala soo bixi karaan oo ay musaafurin karaan dadka sharci daradana ay magaalada New York ama gobolka New York ay ka qabqaban karaan arintaasina sidoo kalena waa arin aan doonayo inaan idin la wadaago Trump oo isagu dhahayo wadankayga ayaan badbaadinaya sida darteed ma ahan inaan wax sharciga ku xadgudbayo oo wixii aan rabo ayaan sameyn karaa arintaasi oo xubno badan oo xisbiga dimuqraadiga aad uga careysiisana sidoo kale waan idin la wadaagaya balse marka hore aan ku bilaabo Trump ayaa waxa la leeyahay waxa uu shaqada ka ceeriyay 20 garsoore oo dhinaca immigration ka iyadoo sidoo kalena maamulku uusan wax faahfaahin ka bixin sababta rasmiga ah uu shaqada uga ceeriyay jimcihi ayaa waxa la sheegayaa in 13 garsoore oo aan wali la dhaarin shaqada laga ceeriyay Trump shaqaalaha oo bartilmaameedsanaya waxay yihiin shaqaalaha federaalka ee muddo ka yar 2 sano shaqada ku jiray shaqaalahaasi waa shaqaale si toos ah aan wali loo hayr gareynin sida darteed shaqaalahaasi ayuu bartilmaameedsanaya marka waxa la leeyahay jimcihii 13 shaqaale ayaa shaqada laga ceeriyay iyo sidoo kale 5 caawiye oo iyaguna garsoorayaashaas waxay ahayn kuwa immigration judgeska oo maxkamadaha dhinaca immigration-ka iyagu fariista go'aan ka gaar arintaasi waxa cadeeyay Matthew Biggs oo ay ku jireen shaqaalahaasi midowgooda oo la yiraahdo International Federation of Professional and Technical Engineers ayaa arintaasi xaqiijiyay oo waxay yireen waxay qayb ka ahayn shaqaalihii federaalka ee Trump shaqada uu ka ceeriyay laba garsoore oo kale ayaa jirtay sidoo kalena isla sidaas iyagana garsoore immigration oo shaqada laga ceeriyay ilaa hadda ma cadda sababta Trump uu shaqaalahaasi dhinaca immigration-ka garsoorayaashaasi oo maxkamadaha immigration-ka fadhiyay shaqada uga ceeriyay garsoorayaashan waxay yihiin garsoorayaasha dadka wadanka sharci darada ku soo galay la horgeeyo kadibna kiiskooda magangalyadoonka go'aan ka gaaro oo qofkaasi ama magangalyo u ogolaada ama u diida marka sidaa darteed hadiiba shaqaalihii maxkamadaha federaalka shaqada laga ceeriyay macnaheedu waxay tahay in kiisaskii hadda ay wali sii kordhayaan waxa sidoo kale wasaaradda cadaaladda oo ay hoos yimaadaan in ka badan 700 oo garsoore oo maxkamadaha federaalka fariista ee dhinaca immigration-ka ayaa waxa ay iyaduna faahfaahin aysan ka bixin sababta 20kaasi garsoore shaqada looga ceeriyay marka waxa muuqata in hadda kiisaska dhinaca magangalyadoonka ee maxkamadaha immigration-ka ee federaalka hor yaala ay kor u dhaafayaan 3.7 milyan oo kiis marka hadii marka garsoorayaashii go'aanka ka gaari lahaa kiisaskaasi shaqada laga ceeriyay macnaheedu waxay tahay in muddo dheer ay qaadan doonto oo sanado ah in kiisaskaasi go'aan laga gaaro marka dadka hadii maxkamada ay ugu jireen waxa laga yaabaa in hadda maxkamadahoodii laga saaro kuwa kale oo ballan maxkamadeed heli lahaana aysan ballan maxkamadeed helin maadaama la yareynayo garsoorayaashii dhageysan lahaa kiisaskaasi oo hadda qaarkood shaqada laga ceeriyay marka hadda waxa la leeyahay 20kaasi garsoore mid kasta oo shaqada laga ceeriyay sanadkii waxa uu dhageysan lahaa kiisas u dhaxeeya 500 ilaa 700 marka hadda waxay noqonaysaa hadii xisaabta la isku dhufto marka ku dhufo 20 garsoore oo midkiiba 500 ilaa 700 oo kiis uu dhageysan lahaa sanadkii laakiin shaqadii laga ceeriyay arintaasi marka waxay leeyihiin kiisaska garsoorayaal fara badan oo maxkamadaha federaalka fariista macnaheedu waxay tahay in kiisas fara badan go'aan laga gaaro laakiin maadaama hadda la sii yareynayo arintaasi waxay noqonaysaa in ballamihii maxkamadaha ay iyaguna waqti kale ay sii qaataan sababtoo ah garsoorayaashan hadda waxa shaqaaleysiiyay maamulkii hore ee Biden laakiin Trump isla markiiba hadda shaqada ayuu ka ceeriyay qaarkood training ayuu ku jireen wali lama dhaarin tababar ayaa u socday oo sida kiisaska go'aanka looga gaarayo garsoorayaal kale khibrad leh ay la shaqeynayeen marka maadaama hadda shaqadii laga ceeriyay macnaheedu waxay tahay in kiisaskii immigration-ka ee faraha badnaa ee maxkamadaha immigration-ka ee wadanka hor yeelay ay mar kale dib u dhac weyn uu ku imaanayo arintaasina waa arin muhiim ah oo dadka wadanka sharci darada ku soo galay loo baahan yahay inay ogaadaan dhinaca kale maayarka magaalada New York Eric Adams
waxaan ogeyn bishii September in lagu soo ogay dacwado laaluush iyo musuqmaasuq in shirkadda diyaaradaha ee Turkish Airlines iyo mas'uuliyiin Turki ah in lacagtaasi uu ka qaatay xilligii ololaha doorashada uu ku jiray isla markaana qaar ka mid ah shaqaalihiisa xitaa guryahooda la baaray isaga taleefanadiisii laga qaatay qaarkood waa iscasileen marka maamulka Trump ayaa si lama filaan waxay toddobaadkan ugu dhawaaqeen in dacwadihii musuqmaasuqa ee loo haystay maayarka magaalada New York gabi ahaanba meesha laga saarayo waxa la leeyahay maayarka New York wuxuu maamulka Trump uu ka ogolaaday in uu la shaqeeyo maadaama magaalada New York ay tahay sanctuary city oo aysan xaq u lahayn inay la shaqeyso dowladda federaalka hadda waxa uu ku bedeshay hadii dacwadahaasi laga joojiyo waan idila shaqeynaya xabsiyada waan idin furaya magaalada New York dambiilayaasha ku jira waad la soo bixi kartaan dadka sharci darada ee magaalada ama gobolka New York ku noolna waa soo qabqaban kartaan xitaa toddobaadkan Fox News ayaa Mayor Eric Adams iyo ninka Trump uu xilsaaray arrimaha xadka iyo masaafurinta Tom Haman iyagoo qoslaya ay ka soo wada muuqdeen uu leeyahay hadda waa naloo ogol yahay in aan dadka sharci darada ee dambiilayaasha aan ka soo qabanno gobolka New York marka toddoba dacwad ooge oo wasaaradda cadaaladda ay horey ugu xil saartay in ay baaraan arrintan oo dacwadahan la socdaan ayaa iscasilay waxay yiraahdeen kiiskan waxa sii wadi kara qof nacasa iyo qof fulaya oo kaliya sida darteed waa iscasileen marka dacwadihii musuqmaasuqa iyo laaluushka oo Mayor Eric Adams ku socday wasaaradda cadaaladda gabi ahaanba meesha waa ay ka saartay waxa la leeyahay marka waxa uu ku bedeshay in dacwadahaasi hadii la iga tuuro maamulka Trump waa la shaqeynaya maamulka Trump hore waxa uu yiri sidoo kale arrintan waa arrin siyaasadeed dacwadaha musuqmaasuqa ee Mayor Eric Adams lagu soo oogay marka hadda arrintaasi sidoo kalena waa arrin jirta oo Mayor Eric Adams gabi ahaanba dacwadihiisii waa la tuuray sida darteed waxa loo maleynayaa inuu diyaar u yahay hadda inuu la shaqeeyo maamulka Trump soo qabashay dadka sharci darada gaar ahaan kuwa xabsiyada ku jira maadaama wasaaradda cadaaladda gabi ahaanba dacwadahaasi ay meesha ka saartay dhinaca kale Trump ayaa waxa uu shalay bartiisa Truth Social ku soo qoray qofkii doonaya wadankiisa inuu badbaadiyo ma ahan inuu sharciga ku xadgudbayo marka Trump waxa uu banaysanayaa arrintan hadda wasaaradihii dowladda oo Elon Musk uu ogolaaday inuu dhaxgalo oo isla markaana lacag fara badan oo la qasaarinayay la badbaadiyo shaqaalihii dowladda federaalka shaqada laga ceerinayo hadda la leeyahay 75,000 ayaa hadda shaqadii ka tagtay oo ogolaatay emailkii loo diray 100,000 ilaa 200,000 oo bartilmaameedsanaya maamulka Trump in shaqaalaha federaalka shaqada laga joojiyo marka sida darteed waxa arrintaasi aad uga carooday madaxweyne ku-xigeenkiisii hore Mike Pence oo isagu soo sheergareeyay qoraal uu soo qoray sanadkii 2010 uu leeyahay waxa loo baahan yahay in dastuurka loo hoggaansamo Adam Schiff oo ku jira aqalka sanadka oo dimuqraadiya wuxuu yiri Trump waxa uu hadlay sidii kaligii taliye dhab ah oo run ah sida darteed Matt Ridge oo isaguna ka tirsan Congress-ka oo dimuqraadiya wuxuu yiri Trump waxa uu muuqdaa in uu rumaysan yahay in isagoo ku marmarsiyoonaya wadanka ayaa badbaadinaya in uu wax kasto sameyn karo oo awoodiisa wax kasto uu isticmaali karo marka ninkan Trump waxa uu macnaheedu qoraalkan uu soo qoray tahay hadii wadankayga aan badbaadinayo ma ahan inaan wax sharciya ku xadgudbayo oo wixii aan rabo ayaan sameyn karaa arrintaasi ayaa Trump bartiisa Truth Social uu ku soo qoray walow hadda mudaharaadyo fara badan oo shaqaalaha federaalka oo shaqada laga ceerinayo ay socdaan garsoorayaal qaarkood ay hor istaageen laakiin garsoore ayaa u ogolaaday mar kale maamulka Trump in uu sii wadi karo shaqaalaha federaalka in shaqada laga ceeriyo laakiin intaasoo dacwadoodo kala duwan ayaa ku furan maamulka Trump gaar ahaan waaxdan oo u xil saaray Elon Musk oo Department of Government Efficiency ama DOGE loo soo gaabiyo oo la leeyahay wasaaradihii dowladda ay dhaxgalayaan kadibna waxa ay eegayaan xogtii dadka gaar ahaan IRS-ta hadda waa kuwii USAID joojiyay marka wasaarado kala duwan ayaa hadda ku maqan yihiin wasaaradda waxbarashada waxa laga yaabaa in gabi ahaanba iyada la baabi'iyo sida hadda uu Trump uu qorsheynayo marka arrimahaasi ayaa jira waan arki doonaa sidoo kale waxyaabaha soo kordha asxaabi aad iyo aad u mahadsantiin intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo